sanadkii 2017 tirada guurka qasabka ee Britain ayaa kor u kacday ilaa 19% marka loo eego sanadkii ka horeeyay ee 2016. Haddaba laanta la socodka guurka qasabka ah ee UK ayaa sheegtay inay heshay ilaa 196 kiis oo la soo gaarsiiyay laguna soo gaarsiiyay emailo iyo telefono. Waxa liiskan halka sare uga jiray dalalka Pakistan dad ka soo jeeda oo guur lagu qasbay, waxaana ku xigay dalka Bangladesh. Soomaaliya ayaa lambarka saddexaad soo gashay. Sida ay haddaba warbixintan sheegtay, tirada guurka qasabka ah ee Soomaalida UK ee laba jibaarantay waxaa dhacay ilaa 91 kees, taas oo ka dhigaysa in Soomaalida UK ay ka kormaraan dadka ka soo jeeda Hindiya oo iyagu kolkan hoos uga dhacay kaalinta afraad. Haddaba warbixintan oo sii kala qaaday waxaa lagu sheegay in kiisaska Soomaalidu ay ahaayeen 65 gabdhood iyo 26 wiilal. Ilaa 97% dadkaasi waxa ay dawladda soo wargeliyeen iyagoo dalka Britain dibadda uga maqan. Haddaba waa maxay guurka qasabka ah? Jamaal Cusmaan oo warbixino badan hore uga sameeyay ayaan weydiiyay su'aashaas. Forced marriage ama guurka qasabka ah sida wadankan aan joogno oo kale looga yaqaano ay siday Soomaalidu u samayso oo kala duwan yahay isleeyahay. Wadankan saxaafadda oo kale waxay inta badan wax ka qoraan ama ka hadlaan dad muslim ah ama aan muslim ahayn oo ka yimaada koonfurta Aasiya. Dadkaas waxyaalaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah inay gabdhahooda ku qasbaan in ay guursadaan ninka ay reerku la rabaan. ay dhahaan ama waan ku dilaynaa ama guursan ninkan. Laakiin waxaan isleeyahay Soomaalida marka la dhaho waa laga yaabaa gabadha in lagu cadaadiyo inay ninka guursato, in la isku dayo in laga dhaadhiciyo inay dani ugu jirto inay ninkan guursato ama reerka dani ugu jirto hadday reerku dan yar yihiin oo kale. Laakiin intaan ogahay gabadh Soomaaliyeed oo intii ama midi lagu qabto ama qori reerku ay leeyihiin waa inaad ninka guursato ama waan ku dilaynaa, kulli aniga ma maqal. Soomaalidu dhaqan ahaan waxaa jiray wax la yiraahdo godob reeb oo ah markay laba qabiil istiraan oo kale in gabdho la kala guursado. Si gabdhaha hadii la kala guursado qaraabo loo noqdo, dagaalna una meesha uga imaanin. Kaasoo kale dadka qaar waa laga yaabaa inay u arkaan inuu guur qasab yahay, laakiin markaad weydiiso dadka bulshooyinka barta waxay ku dhahayaan waa fikir aad u fiican in labadii qabiil isdiriraya ay gabdho kala guursadaan si loo heshiiyo oo dagaalka loo soo afjaro. laakiin aakhir gabadhu way diidi kartaa haddayna rabin way dhihi kartaa ma raba ninkan inaan guursado. Wayna sameeyaan gabdho badan oo Soomaaliyeed way diidaan inay ninka guursadaan.